degeysanaysaan barnaamijka cawiska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA han saaxiib yaal anigana sheeko yar oo qosol leh oo kolleyba aan aad ugu qosolay tan iyo maalintan arkay aan idinkaga dhaco wadanka Hindiya ayaa dumar la baxay gulaabi waxay isu urursadeen oo ay isu bahaysteen in ay budeeyaan oo ay garaacaan nin allaale iyo ninka ay xaaskiisa kaga soo cabato inuu garaacay ama uu gacan u qaaday dumarkani waxay ku hubaysan yihiin budad waaweyn oo hadda si kale oo aan ku macneeyo ma garanay tiirarka aqal Soomaaliga lagu dhiso oo jooggoodaba uu ka dheer yahay iyaga waxaana ay qaateen maryo isku wada eg oo pinki ah marka maray dumarkani isu soo urureen oo ay banaanbax sameynayeen iyaga u gaara ay waxay lahaayeen nimanka xaasaskooda garaaca ha dhacaan dumarka xiran maryaha binkiga ah ha waaraan oo ha noolaadaan wax badan dumarkana markaa waxay leeyihiin mid iyaga ka mid ah oo hogaamisa isla markaana waxa ay bartaa sida budka la isugu difaaco haddii saas lagu soo tuuro saas iska dhee haddii madax lagaala su'aada saas isaga qabo sidii karateegi oo kale dumarkana markaa waxay yiraahdeen raggeennii baa xaaxda noo keenay oo aanu qaati ka joognaa haddii aanu dacwoonana booliiskii laaluush bay qaadanayaan markaasi sharciga annagaa gacmaheenu ku fushanayna gabadha hogaamisa groupkan la baxay gulaabi waxaa la yidhaahdaa Sambata waxay leedahay sharcigu boolisku fulin waaye ayay Sambata fulinaysaa kaasoo ah inay budad u dhiibto dhammaantood oo ay tiraahdo isugu taga haddii midkiin uu soo xumeeyo odaygeeda markaas waxay tiri mas'uuliyiinta dawladda ee aan codkiina dhageysanayn ee waxaad sheegaysaan dhagaha ka furaysanaya laad ku qaada iyagana dumarkan markaa waxaa waddanka Hindiya looga yaqaanaa gaangiistariinta la baxay gulaabi